kulanti haboon daawadayaal halka naga daawaneysaan waa channelkeena Hormaal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn muuqaalka inta daawaneysa waxaan ku soo gudbin doonaa dawladda Uganda oo ku dhawaaqday inay ku biiri doonto dagaalka ka socda bariga dhexe isla markaana ay garab ay sii doonto Israa'iil maxaa ku kalifay in xilligan dawladda Uganda hadalkaasi uu ka soo yeero yaase ku dhawaaqay muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doonaa waxa sidoo kale muuqaalka inta daawaneysa ku soo gudbin doonaa Uganda oo dhinaca kale weerar afka ku qaaday dawladda Turkiga kana soo horjeesatay garab istaaga dawladda federaalka Soomaaliya ay siinayso xogii u dambeeyay halkan kugu la wadaagi doonaa intaad muuqaalka daawaneyso sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa Kooriyada Waqooyi ee Shiinaha oo heshiis caalami ah wada gaaray hadaba heshiiskaasi muxuu ku saabsan yahay maxaase xilligan ku soo beegay yaase gaaray heshiiska halkaas lagu gaaray muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan xaaladda guud ee bariga dhexena iyo wada hadalada Mareykanka sidoo kale Iran ayaa muuqaalka ku fadaaqidi doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhegan baleelkana furo si ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan waad ku maadsantay daawashadaada aynu ku bilaabnay dawladda Uganda ayaa ka carootay taageerada dawladda Turkiga ay siinayso Soomaaliya xilli shalay markabkii ka yimid dhanka iyo Turkiga isla markaana ah midka qodaya shidaalka munaasabad soo dhaweyn ah loogu sameeyay dekedda caasimadda ee Muqdisho taliyaha ciidanka ee dalka Uganda ahna wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa markii arintaas ay dhacday kadib waxa uu weerar afka oo si toos ah ugu qaaday dawladda Turkiga isagoona sheegay inuu xiriirka uu u jari doono taliyaha ee ciidanka ee xooga ee dalka Uganda waxa uu sheegay in intii ay socdeen dagaalkii al-shabaab iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya ay ciidanka Uganda Soomaaliya ay ugu geeriyoodeen ciidamo fara badan oo aan la qiyaasi karin waxa uu taliyaha uu sheegay laga soo bilaabo 2007 ilaa 2011 ciidanka Uganda ay ahaayeen kuwa sida adag u la dagaalamay al-shabaab halkaasina dhaawac iyo dhimasho uu ka soo gaaray waxa uu sheegay in dagaalkaasi kaliya ay ka caawinayeen Ingiriiska Mareykanka iyo Faransiiska sida uu ku daawacay bartiisa X qoraalkaas bartiisa X uu ku daawacay taliyaha waxa uu noqday mid dhaliyay hadal heem fara badan isla markaana siyaabo kala duwan dadka ay ugu falcelinayeen iyadoona weerarka afka ah uu ku qaaday dalka Turkiga uu ku soo aaday xilli dawladda Turkiga dekedda caasimadda Muqdisho ay ku soo xirtay markabkii qodi lahaa shidaalka isla markaana toddobaadada soo aadan la filayo in markabkan uu u dhaqaaqo goobta shidaalka ee horey loo soo sahmiyay si uu halkaas ugu bilaabo qodista shidaalka dawladda ee Uganda gaar ahaan taliyaha ciidanka ee dalkaas Uganda isla markaana ah wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda ayaa waxa uu sheegay in intii ay Soomaaliya ay ka socdeen xaaladaha adag ee dagaalka lagu jiray al-shabaab 2017 ilaa 2011 dawladda Turkiga aysan ka soo muuqanin dagaalka lagu jiray al-shabaab waxa uu sheegay in mar qura ay si lama filaan ah ay u soo caanbaxday isla markaana xilligan ay muuqato dawladda Turkiga kaalinta ay ka qaadatay Soomaaliya balse xilliga ee halkan uu sheegay in ay goobta ay ka baxday dadaalada Uganda ee dagaalka al-shabaab arintaasi ayuu si aad uga carooday dhanka kalena ee taliyaha ee dalka ciidanka ee Uganda ahna wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka ee Uganda Yoweri Museveni ayaa sidoo kale si cad waxa uu uga hadlay dagaalka ka soconaya bariga dhexe waxa uu sheegay in dawladiisa si toos ah ugu biiri doonto dagaalka ka socda bariga dhexe waxa uu sheegay in si toos ah ay u difaaci doonaan Israa'iil isagoona sheegay in 100,000 oo askar ay u diri doonaan Israa'iil si ay ugu bardagaalamaan waxa uu xusay in ciidan Uganda ay yihiin kuwa si aad u tababaran isla markaana 2 toddobaad kaliya ay ku qaadan doonto in Iran ay ka qabsadaan caasimadda dalkaasi hadalkan ayaa waxa uu noqday mid si weyn dadka si aad ah u falanqeeyeen isla markaana dhaliyay hadal heen kala duwan lama oga in sababta rasmiga ah ee ka dambeysay hadalka taliyaha waxa xilligan ku soo beegay
balse weerarka uu ku qaaday dowladda Turkiga ayaa loo aaneynaya inay ka timid kadib markii heshiiska shidaalka ah ee dowladda Soomaaliya iyo Uganda ay kala saxiixdeen isla markaana qodistiisa ay bilaaban doonto. dhinaca kale haddii aan aadnana Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha ayaa markaana waxay wada galeen heshiis diblomaasiyadeed. dowladda Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ku heshiiyay inay sii xoojiyaan xiriirkooda diblomaasiyad, dhaqaale iyo mid amni sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay kadib markii booqashooyin la isdhaafsaday. heshiiskan ayaa imaanaya xilli gobolka Bariga Aasiya uu wajahayo xiisado sii kordhaya gaar ahaan la xiriira barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang iyo cadaadiska ka imaanaya reer galbeedka. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa arrinkan waxay u arkaan tallaabo sii xoojin karta isbahaysiga istaraatiijiyadda ee u dhexeeya Beijing iyo sidoo kale Pyongyang, kana tarjumaysa dadaalada Shiinaha ee uu saameyn weyn ku yeeshanayo gobolka iyo siyaasadda caalamka. inkasta oo faafitaankaasi heshiiska aan si buuxda loo shaacinin, haddana waxaa la filayaa in labada dal ay iska kaashan doonaan dhinacyada ganacsiga, amniga, arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale in laga yaabo inay sii kordhiyaan iskaashiga militari. Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi waxay sii adkeynayaan xulafadooda, tallaabo si toos ah ay u saameyn kartaa isku dheelitirka awoodda Bariga Aasiya iyo sidoo kale loolanka caalamka. arrintan waxaa si aad ah u soo dhaweeyay wadamo badan oo ka mid ah caalamka in ay xilligan heshiis diblomaasi ay kala saxiixdaan Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale Shiinaha. mana ahan markii ugu horeysay oo heshiis labadan dhinac dhexmaro. waxaa jirtay dhowr jeer oo hore ay heshiis ay wada galeen labadan dhinac, waxaana ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo soo jireen ah. markana waxa ay noqonayaan dalal dhanka ee diblomaasiyadda iska garabsanaya. dhinaca kalena haddii aan ku soo gabagabayno muuqaalkeena, Bariga Dhexe xaaladiisa waxay noqotay mid faraha ka sii baxday. waxaa la rajeynayaa in wada hadal uu dhexmaro Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan, iyadoo arrintaasi ay jirto. Israa'iil waxay weli ay wadaa duqeymaheedii Lubnaan, iyadoona wada hadallada qodobada miiska u saaran Iiraan ay ka mid yihiin in aan marnaba la duqeyn karin Lubnaan. haddii la duqeeyana Iiraan ay ka bixi doonto wada hadallada ay kula jirto Mareykanka. inkastoo Israa'iil ay ku doodeyso in wada hadallada iyo xabad joojinta aysan qayb ka ahayn wada hadallada Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan, iyadoona Iiraan dhankeeda ay ka go'an tahay haddii Lubnaan la duqeeyo ay joojin doonto wada hadalka iyo sidoo kale heshiiskii xabad joojinta ee muddada 2 toddobaad lagu heshiiyay. wixii xogay macluumaad ku soo kordho muuqaaladeena xiga iyo idinkugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena, subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay, like inoo saar si oo gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada.